Assalaamu calaykum akhyaarta. Sidee ayaa loo horumarin karaa bulshada Soomaaliyeed? Bulshada Soomaaliyeed maxay u baahan tahay? Qaab nooceeya ayay u baahan tahay in loo horumariyo? Bulshooyinka caalamka sidee ayaa loo horumariyaa? Marka ugu horeysa bulshooyinka caalamka laba qaab baa loo horumariyaa. Labada qaab ugu horeysa waxay tahay marka ugu horeysa in bulshada loo horumariyo qaab maskax ahaan ah oo ay noqdaan bulshadu kuwa maskaxda ka horumaray ama mataqaanaa wax badan qabsan kara, wax badan fahmi kara, wada noolaanshaha fahmi kara, macnaha muhiimadda Tudo julgado por uma comissão inay wada formada noolaadaan, muhiimadda ay bulshanimadu leedahay, muhiimadda ay mas'uuliyaddu leedahay. Macnaha waxay u baahan tahay bulshada marka ugu horeysa inay maskaxaan u horumarto, inay noqon karaan kuwa ayagu isxalin kara, kuwo mataqaanaa khilaafaadkooda ka jawaabi kara. Marka bulshadeenu Soomaaliyeed sidee ayaan u horumarin karnaa? Bulshadeena Soomaaliyeed waxaan u horumarin karnaa inaan maskaxaan marka ugu horeysa inaan u horumarino, marka ugu horeysa inaan bulshadeena lambarka koowaad inaan ixtiraamno. Bulshada haddii la ixtiraamo oo mas'uuliyad gaar ah la iska saaro oo mar walba oo loo adeegayo ama wax loo qabanayo ixtiraam loo muujiyo, go'aan walba oo la gaarayo in bulshada lagu ixtiraamo, in bulshada waxa la sameynayo in bulshada mataqaanaa loo fiiriyo. Haddii aan bulshada aan la ixtiraamin, sidoo kale bulshaduna ma sameynayso inay noqoto bulsho horumarsan oo mataqaanaa maskaxaan iyo cilmi ahaan iyo wax walba iyo horumar ahaanba mataqaanaa bulsho horumarsan ma noqon karto. Marka muhiimadda koowaad waxay tahay bulshada in la baro mas'uuliyadda waxay tahay iyo in ay bulshadu ay noqdaan kuwo ayagu khilaafaadkooda isxalin kara. Waxaan kuu sheegayaa su'aalo kuwa caddaynaya inaysan bulshada Soomaaliyeed ahayn kuwa maskaxaan u horumarsan ama bulsho u diyaara inay noqoto bulshooyinka caalamka siday u dhaqmaan iyo horumarka ay gaaraan. Su'aalahan markii aad ogaatid jawaabahooda ayaad ogaan kartaa bulshada Soomaaliyeed waxa ka maqan. Su'aasha koowaad waxay tahay bulshada Soomaaliyeed maxay u aaminsan yihiin inay ku noolaan karaan meesha ay qabiilkiisa ama dadkiisu degan yihiin kaliya inuu ku noolaan karo oo waddanka Soomaaliya gobol kale oo ka mid ah inuusan aadi karin? Maxay bulshada Soomaaliyeed uga baqaan inay maal gashtaan gobol uusan ku dhalan ama uusan ka soo jeedin oo kale? Maxay bulshada Soomaaliyeed ugu fududahay in mataqaanaa dagaal la sameeyo, in waxyaabaha khatarta oo kale in lagu kaco? Marka su'aalahaas oo dhan waxay kuu sheegayaan bulshada Soomaaliyeed inaysan ahayn kuwo maskaxaan u horumarsan. Bulshadu sideedaba haddii ay maskaxaan u horumarsan tahay waxay aqbalaysaa wax walba oo ayaga dhexdooda ka dhaca ama mataqaanaa ay bulshada dhexdooda qayb ka mid ah ay sameyso in la xalin karo. Sababtoo ah marar badan baa waxaad arkaysaa bulshada qayb ka mid ah ayaa khalad sameynaysa. Khaladka markay sameyso lama dhahayo khaladkan cidda gaarka oo sameysay yaa weeye, lama dhahayo. Waxaa laga yaabaa dhowr qof ama 5 qof oo danan gaara leh inay sameeyaan. Marka bulshadu waxay sameynaysaa laba koox isu saarayaan, kooxna dambiilihii way difaacaysaa, kooxna mataqaanaa dambigii waxay dusha ka saaraysaa kooxdii kale. Marka bulshada Soomaaliyeed waxay ku horumari kartaa lambarka koowaad in maskaxaan loo horumariyo oo la baro mas'uuliyadda iyo in bulshada marka hore la ixtiraamo. Haddii bulshada la ixtiraamo, bulshadu waxay baranaysaa mas'uuliyadda. Marka labaad bulshada in wax la baro ay bulshadu wax barato. Mar walba waxbarashadu waa muhiim oo macnaha waxbarashada waa laga maarmaan, laakiin waxa uma tarayso waxbarashadii haddii mar walba bulshada wax la baro oo la yiraahdo aqoonta waxa la barto la yiraahdo, laakiin ayagii dhexdoodii lagu sameeyo wax aan ayaga u wanaagsanayn oo aan mustaqbal fiican aan keenin. Waad ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkan. Fadlan subscribe noo saar. Mahadsanid.